deeqdii laga soo aruuriyey barnaamijka afuri oo hel 2 ajir ee galab kasta ka baxay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu afuriyey 50 qoys oo barakacayaal oo ku nool degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Deeqdan ayaa waxay ka koobneed bur, bariis, timir iyo saliid oo qoys walba oo ka mid ah 50kaasi qoys la siiyey. qoysaska maanta loo qeybiyo deeqdan laga soo aruuriyey barnaamijka afuri oo hel 2 ajir ee ka baxay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa ahaa qoysaskii ugu liita dhanka nolosha ee ku nool degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Dadka loo qeybiyo deeqdan ayaa waxaa ku jira hooyooyin da' oo xaalado nololeed ku haysata degmada Kaxda iyo sidoo kale kuwa aan afur ka haysan. agaasimaha guud ee idaacadda Risaale Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi ayaa sheegay in deeqdan ay tahay deeqdii ugu horeysay ee laga soo aruuriyey barnaamijka afuri oo hel 2 ajir ee ka baxay idaacadda Risaale bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed ay ballan qaadeen inaan qabanayno barnaamijkaas kaasoo dhageystayaasha iyo dadka website-ka ka akhriya idaacadda Risaale ay lacag ugu soo ururinayeen dadka barakacayaasha ah ee Muqdisho hareeraheeda jooga gaar ahaan kuwa meesha ugu badan degmada Kaxda ay joogaan aanan ballan qaadnay inaan sanadkan qabanayno tartamada mid kamid ah aan ku bedelnay inaan qabanno barnaamijkaas afuri oo hel 2 ajir oo ay dhageystayaashu ugu soo aruurinayaan $1, $2, $3 iyo wixii lamid ah dadkaas dhibaataysan oo ayagoo awal abaarihi ay hayaan haddana Ramadaanka ku soo galaan afur haysan. maanta isbuuc kadib waxaa noo suura gashay inaan face-ka koowaad aan fulino sidaad arkaysaan 50 qoysan waxaan u qaybinay qoys walba inuu helayo haaf bariisa, rubac bura iyo caag saliida oo 3 iyo timir kaasoo aan ka soo iibinay lacagtii ay ku deeqeen dadka idaacadda Risaale dhageysta iyo kuwa akhristaba. lacagtaasoo gaaraysa $51 $1,151 ay lacagta gaaraysay $1,151 $1,125 waxaan ku soo iibinay raashinkaas rasiidkeedina waa hayaa ayagoo sawiraha heli doonaan dadka insha Allah oo soo dhiibo waxa soo arki doonaan 26 ka soo hartana waxaan baawur ka soo xamaalay iyo dadka dejinayaan ku bixinay. gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Maxamed Ismaaciil ayaa maamulka idaacadda Risaale ku bogaadiyay inay sii laba jibaaraan dadaalka ay ku afurinayaan dadka danyarta ah ee ku nool degmadaasi. waxaan isleeyahay lama ilaawi doono shacabka Soomaaliyeed ee dareemaya dhibaatada inta leeg ee maanta ay runtii markaad warsato waxay ruuxu xalay wuxuu ku suxurtay iyo wuxuu ku afuray markaad weydiiso aad baad u xanuunsanaysaa. ruux allaale ruuxii muslina oo walaalo oo dareen islaamnimo leh uu danqanaya. qaar baa ku oranaya ama biyaan ku afuray, qaar baa ku oranaya waxoogaa yaroo seero qabowday oo meelaha ka soo tuugsaday baan maaragtay aan ku suxurtay kuna afuray. qaar baa ku oranaya maba afurin, qaar baa ku oranaya sidii aan shalay ku joogaa ku soomay. ninba duruufo kala duwan buu kuu sheegayaa. marka waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed ee barnaamijka Risaale ay samaysay ajiibay ee gartay inay ajirka aakhiro ee dambe maalinka ay xisaab aakhiro ay culus tahay inay ku moodaan oo waxa ay maanta baxsadeen $1 noqotaya $2 noqotaya wax ka badan noqotayaaba. waxaan leeyahay walaalayaal sadaqadiina waa maqbuul, waa sadaqad tayiba xaqiiqdii. waxa noo muuqda marka aan fiirino maxaa yeelay waa waxa nafta bini'aadmigu ay ku qanci karta weeye. hadday bariiska tahay, hadday burka tahay, hadday saliidda tahay, hadday timirta tahay baa waa ashyaadii ugu qiimaha badnayd ee qutul qaalkeeda dadkeenu ay kari kareen weeye ama hadda loo soo karin. waxaan idinka dalbanaynaa oo idinka codsanaynaa inaad arrintaasi aad runtii aad sii laba jibaartaan. qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iideysta deeqdan laga soo aruuriyey barnaamijka afuri oo hel 2 ajir ee ka baxay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa u mahadceliyay maamulka idaacadda iyo dadkii ka qayb qaatay barnaamijkan.